caawa waxaa ciyaaray gadgaduudkii iyo gadgaduudkii kale laakiin kala ahaayeen Arsenal iyo Manchester United. kooxdii Arsenal ahay saanma ka daacad saanma rabaan inay horyaal ku qaadaan. waxaa kaaga daranba goolashay dhaliyeen qulub ma taqaanin corner soo gama boorteer riix kan waxay kanay ku dhacday iyo mid kale oo xabad kale oo ayadana oo qulub ahayd wax dhanba qulub waay laakiin saddexda gool laga dhaliyay xataa tan koowaad oo Mboma Manchester u dhaliyay iska dhexataa banooni qalad ku yimid waxay laakiin labada kale awooda looga dhaliyay awood bambo jow rukub waa soo bareejeen xabad oo qulub boorteeriga waa la riixay kabacdi gadaal ay soo celiyeen Manchester United laakiin kunha ninkaas gadaasheeda ka muuqdo mujidin ninkaas gadaasheeda ka muuqdo to ku dhigay waa laba horyaal oo maleena waa goolkii toddobaad oo banaanka ka tuurayo Bruno ku soo xigo 6 jeer laakiin Manchester United toddobaad ma dhalin wuxuu soo dhaliyay Wolves horyaalkii hore iyo horyaalkan waay marka reer Arsenal awal buu iska sabri jirteen soo adkay foori gacan iyo koorni iyo koob ma lagu qaado banooni suuliidii bafu dalaq al raamahane reer Arsenal awal buu sabri jirteen iska sabra Manchester United oo hadda gadaal iyo DNA Michael Carrick laba kulan oo wada 3-2 maanta T-Corres Manchester City waa labada kooxood ugu awoodda badan oo ka badiyay City-na 2-0 soo diray reer United hambali adin leh kunha focus